mudanayaal intaynaan gelin codaynta xeerka ayamaha nooca tahawada waxaa soo galay wadaweyneena waxaa laga kulmay farmaajo shacabkii xeerkii hore jiray iyo waxbedelkeenu ku sameynay go-aankii golaha ku fasaxnay inay xukuumaddu ay fadhiyada ka qeybgeli kartaa ay dad u arkaan iyagoo ilaalinta dastuurka iyo jiritaanka Soomaaliland markaa shacabkii go-aanka fulisha ku dhacay xeerkii hore waa laynaa watuuta satriigu soo baxay go-aanku soo baxay xogayntu ha akhrido go-aankii hore cidda loo fasaxay iyo cidda la kulmi karta go-aanka hore ha akhrido inaguna aan dhegeysanay baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland markuu arkay qodobka koowaad 34 markuu arkay go'aamadii doorashada madaxbannaanida qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland shaqooyinkii burco 1991 laguna eedeeyay shaqooyinkii gobolka 1993 iyo Hargeysa 1997 markuu arkay natiijadii afsida dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliya ee May 2001 laguna xaqiijiyay doorashooyinka madaxbannaanida jamhuuriyadda Soomaaliya markuu arkay in shir kasta oo Soomaaliyeed oo ka hor imanayo go'aamada ku sheegay wuxuu go'aamiyay in cid aalay cidii ku abtirsato ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland dowladda iyo shacab afraad ururo ama axsaab injooyada aqoon-yahanada madaxdhaqameedyada suugaanyahanada iyo dhammaan noocyada ururada bulshada aanay sinaba uga qaybgeli karin shir kasta iyo arrin kasta oo laga hadlayo intisayaasha Soomaaliya ama lagu heshiisinayo dhinac ka mid ah kooxaha Soomaaliya ama iyagoo isku dhanba laba in cid cidii ku abtirsato jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka qayb gashaa shirar ama abaalusha ama ku taageerta sifo kasta sida qowl ficil iyo qoraalba kaga qayb gashaa wadahadallada Soomaaliya ee qodobka koowaad tilmaamayo loo aqoonsanayo dambiile khiyaano qaran taasoo waajib ku tahay dhammaan hay'adaha ku shaqada leh inay hor keenaan maxkamadda awoodda u leh iyadoo la raacayo xeerarka uu tilmaamayo dastuurka ee qodobka 11 faradiisa saddex gaadiidka cid dhul iyo badba ee loo adeegsado ama qaada howlgalkaas waxaa laga qaadayaa fursadda sharciga ee ganacsiga ama tagaaranahay afar waxaa lagula dhaqmayaa xeerkan cid alaala cidii isku dayda ama abuurta ururo bulsho ama nooc kasta oo urur rayidka ah oo u shaqeeya sidii Somaliland loo imtixaano lahaa shan waxaa ka reeba dhammaan warbaahinta jamhuuriyadda Soomaaliland tan xukuumadda iyo tan madaxa bannaanba inay baahiyaan wararka iyo macluumaad lid ku ah lidiga ku ah waxna loogu dhimayo ama lagu wiiqayo jiritaanka iyo madaxbannaanida jamhuuriyadda Soomaaliland lix dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa sharci ahaan ka jira saddex gobol qaran oo keliya sida uu tilmaamay dastuurka qaranka sida awgeed waxaa reeban in ciidamo sheegato gobol kale ama sheegato gobol aan ahayn kuwa dastuuriga tilmaamaya waxaa lagu fulin doonaa tallaabooyinka sharci ee u yaalla sheegasho waxaan ahayn toddoba qofka loo qabto inuu ku kacay qodobada kor ka xusan waxaa la cafin karaa oo keliya xukun maxkamadeed kadib qofkii loo qabto inuu ku kacay qodobkan kor ku xusan waxaa la cafin karaa oo keliya xukun maxkamadeed kadib go-aankan waxaa lagu meelmariyey cod muqaadistii baarlamaanka way ogolaadeen 48 mudane halka ay ka diideen laba mudane marka aamusan iyadoo tirada kooramku uu ahaa 28 dhaqangalka qodobkan waxaa loo adeegsaday sida kuwa dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 100 فرقة الشراب على مهدة وحصحي شيخ إبراهيم شيخ يوسف شيخ مدر شيخ أحمد شيخ نوح فرة سعيد شام علي عبد الله إبراهيم هبلة إلى عقرب حصحي علم حس علي
gudoomiye ku-xigeenkii labaad ee golaha wakiilada ahaa kusmaha gudoomiyaha maxamed xuseen cislaan mu'adin xogiyihii guud ee golaha wakiilada qodobkii kaabistaan ku samaynay kaabis baan ka samaynay laba qodob baa kaabis laga sameeyey waxaa ka bedeliya kaabis go-aanadii baarlamaanka 11 bishii tobnaad 2003 amendment baa lagu sameeyey markuu arkay qodobka sagaalaad faqradisa koowaad qodobka sagaashanaad faqradisa toddobaad qodobka sideedaad faqradisa saddexaad xarafkiisa raac markuu arkay wadatashyada iyo talada qaran ee madaxweynaha jamhuuriyadda la sameeyey safarka iskuulaad ururada iyo ururada cusub ee siyaasadda madaxdhaqameedyada culimada iyo aqoon-yahanada jamhuuriyadda somaliland markuu tixgeliyey kulankii mudanayaasha labada gole iyo madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland iyo xogwarankii wasiirka arrimaha dibadda ee fadhigii labada gole wuxuu go'aamiyey kow in la taageero ka qaybgalka xukuumadda somaliland ee shirka london laba in xukuumadda somaliland ka qayb gasho shir kasta oo loo arko in daliil ku jirto somaliland kana hor imanaya jiritaanka iyo madaxbanaanida qaranimada jamhuuriyadda iyo dastuurka jamhuuriyadda somaliland waxaa goobjoog ahaa fadhigaas 109 mudane waxaana ogolaaday 101 mudane waxaa diiday 4 mudane way ka aamuseen gudoomiyuhuna muu codayn اللهم هذا وحصاحي مدن عبد الرحمن محمد عبد الله عرو دومي ولا وكيلة عبد الله إبراهيم هبنة حوي قلت ذا